ciidamo taabacsan xoogagga ahlu sunna ayaa saaki aroortii hore weerar dhowr jiha ah ku qaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaana ilaa hadda dagaalkaasi uu ka socdaa xaafado ka tirsan magaaladaas. Dad goobjoogyaal ah ayaa raadiyo kulmiye u sheegay in dagaalkii saaka ka bilowday magaalada Dhuusamareeb uu ilaa hadda si xoogan uga socdo xaafadaha qaar iyadoo xoogagga ahlu sunna ay qabsadeen qaybo muhiim ah oo ka tirsan caasimadda Galmudug. Madaafiicii labada dhinac adeegsanayaan ayaa laga maqlayaa guud ahaan xaafadaha magaaladaas iyadoo qaarkood ay ku dhaceen guryo ee dad shacab ay degganaayeen waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur maaliyadeed. Wariyaal ku sugan Dhuusamareeb ayaa keenan u sheegay in ciidanka ahlu sunna ay joogaan xaafadaha Horseed waa bari ilaa qaybo ka mid ah xaafadda Waxar Cadde sida dhabarka dambe ee isbitaalka weyn ee Dhuusamareeb, suuqa magaaladaas ilaa masaajidka Raqayda iyo dhabarka dambe ee shirkadda Hormuud ee xaafadda Sinai. Sidoo kale waxay joogaan kontaroolka waqooyi ee magaalada Dhuusamareeb oo xiga dhinaca Mareer Gur. Ciidanka dowladda ayaa iyagana waxay ka dagaalamayaan aagga dalcadda Daardheer ee xarunta madaxtooyada ama wadada aadda dhanka magaalada Guriceel, xarunta Inji, saldhigga booliiska, xarunta degmada iyo dhammaan xaafadaha Dayax iyo Hodan ee magaalada Dhuusamareeb. Waxay sidoo kale ciidamada dowladda ay saaran yihiin dabaqyada ku yaala xaafadaha magaaladaas. Xogta aan helnay waxay sheegaysaa in ciidanka howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS aysan qayb ka ahayn dagaalka waxayna ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur iyo xarunta madaxtooyada. Warar maanta mar sii horreysay la baahiyey oo ay warbaahintu heshay ayaa sheegay in ADMIS ee dagaalka qayb ka ahayd kuwaasoo markii dambe maanta beeniyey. Barakac xoog leh ayaa ka socda xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug iyadoo qoysaska qaarna ay go'doon ku noqdeen goobaha lagu dagaalamayo. Saraakiisha caafimaadka ee ku sugan magaaladaas ayaa sheegay inuu jiro khasaare lixaad leh oo dagaalka ka dhashay. Mas'uuliyiinta ammaanka ee maamulka Galmudug waxay sheegeen inay dagaalka ku gacan sarreeyaan laakiin wararka madaxa bannaan waxay xaqiijinayaan in laga qabsaday xaafado badan welina oo dagaalka socdo. Dagaalka culus ee maanta ka socda Galmudug ayaa ku soo aaday iyadoo dhammaan madaxdii maamulkaas ay ku sugan yihiin Muqdisho. Madaxweynaha Galmudug ku-xigeenkiisa iyo saddexda xubnood ee ugu sarreysa baarlamaanka Galmudug ayaa toddobaadyo ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sidoo kale golaha wasiirada baarlamaanka maamulka gobolka Galgaduud iyo kan magaalada Dhuusamareeb ayaa soo faarujiyey magaaladaas waxayna deegaan ka dhigteen Muqdisho oo u diyaar garoobaysa doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Saraakiisha ciidanka militariga iyo kuwa booliiska ee Galmudug ayaa sidaas oo kale badi waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hogaamiyaha Galmudug ayaa waqtigiisa oo dhan isugu geeyey dib u doorashada madaxweyne Farmaajo balse waxaa muuqata inuu ceel ku sii ridayo mustaqbalkii Galmudug mar haddii dagaal uu ka socdo maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaas. Ahlu sunna bilooyin ka hor waxay qabsadeen magaalada Guriceel iyadoo markii dambe looga saaray dagaal muddo toddobaad ah socday oo ay ka qayb galeen in ka badan 3,000 oo askari. Dagaalkaasi waxaa ku dhintay ku dhawaad 200 oo qof oo u badnaa dadka deegaanka iyo dhallinyaradii dagaalamay. Reer Galmudug waxay saaka mar kale guranayaan meydadka iyo dhaawacyada dhallinyaro ehel ah oo u dagaalamaya labada maamul oo isku haya dana siyaasadeed oo wadahadal lagu dhammayn karo sida ay qabaan mas'uuliyiinta deegaanka. Galmudug ma ka badbaadi doontaa burbur iyo dagaal sokeeye? u doono Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena.